madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ugu maqnaa dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhameysteen safarkaasi shaqo ay ugu maqnaayeen muddada 6 cisho wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu ka soo degay diyaaradda khaaska ee ka soo qaaday dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland. intaasi kadib waxa uu mid u salaamay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee gagada diyaaradaha ee Cigaal International Airport sida diiran ugu soo dhaweeyay. afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsamo Jaamac oo gagada diyaaradaha ee Cigaal Airport ee caasimadda Hargeysa kula hadlay qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahiyay safarka madaxweynaha Soomaaliland oo kaga soo laabtay dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo kulamadii kala duwan ee uu kula qaatay dalkaasi muddadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku sugnaa wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. madaxweynaha iyo waftigiisu muddadii halka ku sugnaayeen waxay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta ugu sareysa wadanka Imaaraadka Carabta oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka Imaaraadka ahna wasiirka madaxtooyada isla markaana ahaa kusimaha ra'iisul wasaaraha Sheikh Mansour bin Sayed Al Nahyan iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda. madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda Imaaraadku waxay kaga wada hadleen kulamadooda arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ammaanka guud iyo horumarka mandaqada Geeska Afrika, xoojinta xiriirka labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadanka Imaaraadka Carabta, kobaca dhaqaalaha, maalgashiga, macdanta iyo tamarta, iibka xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, dalxiiska, horumarinta xeebaha iyo kalluumaysiga, isu socodka labada shacbi iyo isu furka suuqyada dalalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadanka Imaaraadka Carabta iyo dardargelinta heshiisyadii iyo hawlihii horumarineed ee mashaariicdii waaweynaa ee labada dal ay muddooyinka u dambeeyayba wadaagayeen. dawladda Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhaxeeya xiriir adag oo qoto dheer oo ku dhisan diblomaasiyad iyo iskaashi. madaxweynaha iyo waftigiisu muddadii ay ku sugnaayeen Imaaraadkana sidii ay ula wadeegi lahaayeen mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta dhammaanba kaabayaasha dhaqaalaha khayraadka dabiiciga ee dalkani leeyahay in loo bandhigo kaliya dawladda maahe shirkadaha dawladda ka hawlgala ee maalgashiga sameeya ayna tusaale u noqoto wadamada kale caalamku inay ku soo dhiiradaan oo ay arrimaha iyaguna qayb ka noqdaan. Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa.